السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت احترامك يا كرامة بدنات بانيني سلامينا واختيادو وناكسن نرد عن يا عافيمات تاما يعني ذين رجعينا يكسر دوادا كنال كينا عافيماتك إدريالك عافيماتك نرشا مقالك وحاين كسو قادنا إنا وقرال وطبعا مالمه وقدن بيي waxaynu aad u soo bandhigaynay qoraalada ay nala wadaagaan ama ayna soo gaarsiiyaan bulshada ku xidhan kanaalkeenan caafimaadka. qoraalkeenina qoraaladaas ayuu qayb ka yahay oo waxay noo soo qortay haweeney Soomaaliyeed oo ku xidhan ama ku taxan ama dheehada oo daalacada muuqaalada aynu soo kelino bartan aynu ku leenahay YouTube-ka ee daryeelka caafimaadka nolosha. haweeneydani waxa ay qoraalkeeda ku xusaysaa oo ay ku soo sheegtay ama ay ciwaan uga dhigtay waxa uu igu furay waxaanan awoodin. waxa uu igu furay bay tiri waxaanan awoodin. haddaba haddaynu hoos ugu daadegno qoraalka ay haweeneydani nala wadaagayso ayaa waxay tilmaamaysaa waxay tiri waxaan ahaa haweeney reer iyo xaas iyo ubad iyo awlaadba leh. muddo badan ayaa waxay tiri waxaan la noolaa saygayga. waxay tiri nolol fiican baan ku wada noolayn, deganaansho ayuu gurigeygu ku socday, xasilooni badan baanu dareemaynay. waxay tiri wax dhibaato iyo wax qashqashaada iyo wax mashkilada midna maanan arkay. waxay tiri xilliyada ka mida ayaa waxa uu ninkayga ii soo bandhigay bay tiri inaan qaato dawooyinka kobciya ama saru qaada. waa say qoraalkeeda ku soo qoraysee dareenka haweeneyda ayay tilmaamaysaa. waxay tiri arrintaas anigu waa ka cagajiiday. waxay tiri dhakhaatiirta ayaan soo weydiinayaa inay hadhowta ay saameyn ugu yeelanaysa mustaqbalkayga. aniga waxba igama dhinna, sababaan dawooyinkaa u qaataana ma jirto. markaa waa ka cudur daarday bay tiri oo waa ka diiday. wuxuu yidhi bay tiri qof i adeecaysa ma tihid, raalli igama tihid, aniga markaa ima raalli gelinaysin, imaqli maysin. arrintii waxay kasbatay bay tiri ama ay salfatay in gurigayagii iyo reerkayagii uu ku dumo oo aanu sidaa isku afdhaafno oo arrintaas ayaa sabab u ahaa bay tiri. waxay tiri imika waa kala maqannahay, carruurtaydii ayaan korsadaa, isaguna reer kale ayuu samaystay, halkaas ayuu ku nool yahay, aniguna carruurtayda ayaan la noolahay. haddaba arrintaas ma qalad baan ku lahaa bay tilmaamaysaa haweeneydani. waxay kale sheegaysaa haddii aan lacalla cuni lahaa kiniinada noocaasa waxyeello caafimaad oo intee leeg bay ii geysanayaan ama ii geysan lahaayeen, ay nafteyda soo gaari lahaayeen. tala arrintaa ku saabsan ayaan u baahanahay bay tiri. aad bay u mahadsan tahay haweeneydaasu inay qoraal inala wadaagto oo ay qoraal inala wadaagaan bulshadeennuna. waa arrimaha caafimaadka iyo kuwa qoyska iyo kuwa bulshadaba ay nala wadaagaanna waa mid aynu soo dhoweynayno oo aynu si kaliya laaba u soo dhoweynayno. waana mid runtii wixii talaa ee ku saabsan caafimaadka, wixii fikirahee saliima ee markaa waayo aragnimada ku saabsan intaba waa mid aynu siin doono. haddaba haweeneydani si qoraalkeeda ay ku xustay arrimaha dawooyinkaas, dawooyin qurux badan maaha. inay diidana xaq bay u lahayd oo way diidi karta haweeneydu waxa markaas aanay dhibaato ay u malaynaysa ama ay u arkayso. dawooyinkaa dhakhaatiirtu kulama taliyaan bulshada, ama rag ha ahaato ama haweeney ha ahaato, midna lagulama taliyo. waxa ay leeyihiin side effect, waxa ay leeyihiin huge effect wax la yidhaahdo, waxa ay leeyihiin markaas waa harmful, dhibaatooyin ayay abuuraan. dhibaatooyinka ay keenaan waxaa ka mid a inay haweeneyda ama ninku ku doonaba ha ahaadee inuu jidhkiisu la qabtamo, qabatin wax la yidhaahdo inuu la sameeyo ama adapted ninku ahaado ama haweeneydu ay noqoto oo ha dhowto markaa jidhkii qaabkii dabeeciga ahaayee uu shaqaynayay ay wax iska bedelaan oo ay dhibaata ku timaado haweeneyda jidhkeedii iyo markaa daranwadayaasheedii iyo neerfisadeedii iyo hormoonadeedii intaba inay carqaladi ku timaado ayaa la arkaa. waa saameyn badan yihiin dabcan, lamana dhakhaatiirtu qoraallo rasmiyahoo prescription uguma sameeyaan. dadku inta badan meelaha suuqaqa madoobay waxaa ka iibsadaan, khatarahooda ayaa fara badan. arrintaa inay samayso way ku saxsanayd, laakiin in gurigu u dumo oo gurigu uu dumo wax saxsan maaha. arrintaasi waxay ahayd inay deganaansho fara badan aad samayso, inaad arrintan adigoo diidan oo aan samaynaynin
laakiin inaad maslaxaad fara badan aad ku darto inaad markaas si kale aad u fahansiiso inaad tiraahdo xataa dhakhtar baynu wada tegaynaa arrintaasaynu ka wada codsanaynaa oo sidaa arrinta aad ku meel mariso oo markaas sidaa dhakhtarka ha dhowto uu caqli celiyo oo yidhaahdo waxani uma wanaagsana caafimaadka aad haweeneyda ku qasbayso markaas dhakhtarku counseling fiican siiyo oo family counseling wanaagsan layni siiyo oo dhakhaatiirta dhinaca qoyska iyo arrimaha bulshada aad u tagtaan oo sida arrintiina lagu xalliyo ayay ahayd laakiin inuu arrintaa gurigu u dimo waa mid aynu ka xunnahay waa mid runtii aynu ka tiilaanyoonayno waayo gurigu miisaan badan buu inugu fadhiyaa bulsho ahaan inuu ciyaari nagaga duwo ma doonayno inay dhibaata inaga soo gaadho hal qoys ma doonayno inay lamaano isjecel oo nolosha wada wadaagaya ay kala tagaanna ma doonayno in lamaano ubad iyo awlaad haystaana ay sii kala tagaan oo ay sii xanuun badan tahay haddaba haweenaydan waxaynu u soo jeedinaynaa haddii aad sababtaa su-aasha noo soo weydiisay ay tahay waxaan doonayaa inaan gurigaygii dub u yagleesho ama ninkaygii aanu dub iskugu laabanno arrintan siyaabo kale ayaad uga dhaadhicin kartaa goob caafimaad baad la tegi kartaa qoraalaad u gudbin kartaa muuqaalada arrimaha lagaga digaya ayaad la wadaagi kartaa waa haddii aad mustaqbal dambe ka leedahay ninkaagii waad arrintaa waad dhammayn kartaan gurigaagiina waad soo ceshan kartaa arrintaasu dhibaatada caafimaad ay leedahay ayaa laga yaabaa sayigu inaanu ku baraarugsanayn waad ku baraarujin doontaa marka aad dhammaysaanna noloshiinni ayaa dubis ku noqonaysaan oo carruurta aabbahood ayaad u keeni doontaa oo gurigiinna ayaa dhisan doontaan waa haddii aad leedahay qaladkaas ayaan ka qoomamaynayaa oo waxaan doonayaa inaan dib u xalliyo yacnii adigoo wixii aan yeelayn caafimaadkaaga wax yeelayay ayaa laakiin haddana gurigu inuu dimo aynu ka taxadaraynaa walaalkaas saas ayaad insha allah haddii markaa xidhiidhkiinu wacan yahay oo uu inala soo xidhiidho oo adigii ubadkaba uu ku soo xidhiidhiyo saasaa samayn doonta haddii ilaahay ka dhigo muuqaalkan intaas ayaynu ku soo ururinaynaa waxa fikir afkaar aad qabtaan waad siin kartaan walaasheen dhinaca kale waynu u ducaynaynaa waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa farxad iyo ina ubadkeeda iyo awlaaddeeduba iyaduba ay caafimaad ku noolaadaan farxad ku noolaadaan oo gurigaas iyo nolosheedii fiicnaa ay dub ugu laabato oo ilaahay qalbigooda uu isku hagaajiyo oo isku soo dhoweeyo oo boggooda burcad isku mariyo oo si ay lamaanuhu iskugu yimaadaan ayaynu ilaahay u baryaynaa waanaynu ku rajo weynaa insha allah inay ku guulaysan doonto haweenaydani fikirkeeda iyo hamigeeda iyo higsiga fiican ay raadinayso ay doonayso inay dub u iqbaalato nolosheedii hore ee qoyskeedii iyo reerkeedii ay yagleelato oo markaa ay boodhka ka jafato oo wixii qaladaadee dhacayna la saxo hadday caafimaad ahaan noqoto iyo hadday dhinaca fahanka noqoto intaba laga tallaabsado waa mid dabcan aynu ku dhiirigelinayno waxaaynu rajaynaynaa arrintaa inay wadiiqadaa mari doonto inahaas ayaynu ku soo ururinaynaa noo soo sheega wixii fikir iyo afkaar aad qabtaan ee ku saabsan mawduucyadan arrimaha qoyska kuwa bulshada iyo kuwa markaas xagga caafimaadkaba intaas ayaynu idinku dhaafaynaa fii amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu